سيدي لبادين حديث النبي نوغو شيغي في السنن نبا نين دولكا ايبيي دولكي markuu gatay waa dhul beereed buu ahaa uu falay markaa khasna dahab markaa uga soo baxday jarra min adahab uu qaatay oo la ordo ninkii lahaa uu keenuu ka yiri war dhulkaad iga iibisay dahabka inta leeg baa ka soo baxee malaha waadi lowsaneeda iga qaada buu ka yiri markaas uu may anu kuma ogeyn adaa ilaahay ka siiyay adaa iskale iska qaada buu ka yiri وروحان أديك عليه إيقاظه إنك الزمن كأنه معي وروحان أنيق عليه السي وينتين وحكوت قال من دول كان أنيق عليه قري كان أنيق علىها مهردنا أنيق علىها وحان أنيق علىها بس كويس أنا إياك وحي تاجنا يندتكم مركي حقاقين وروحان أديك عليه إيقاظه إياك قادن مايو ماي ما دعي كرتو ماي أدا إسكاله أدا إلهي كسيه إسكا قادو may dhulkan adaa iga iibiyay malaha waad halmaamsantay adiga iskale iga qaado waxaan maliya anigu yahay lacagta inta leegna anigu kuma siine may labadii nin inta isqabsadeen bay maxkamadda tageen hay isku haystaan kan wuxuu leeyahay xoolaha nin kale leh ha iga qaato kana wuxuu leeyahay war maliya isaga ilaahay siiyay ha iska qaato qaadigii markaa qaadi fiican buu ahaa قضاء الزمن كان لقى يا بيني ورن لهين حولها دولة على إسكا كنا الغرب إسكا في عنوي جيراني لكن كود وعسك جرى دولة ده وش غير مقطع حولها دولة ده إسكا كنا ألقى كم حينوكنا مورن وعويري أبو محل لها أوبت ويل أبو كنا كبر لبدا إسكو غوريا لبدا أنا حولها صيب ويلي الفلس إصلاح هو عجيب هل كهذا إصلاح هو عجيب هل كهذا حماة لكن ده يسوق قصة كله صدق نبى النبي عيسى عليه السلام سيدي ولا السعودين أي مادين مال بنانك وذهب كيالو دايماً مركز النبي عيسى كويد وحن ودايماً والذهب والجوهرات مركز سيد هذا النقاط مركز النبي إلى هاي صدري هي أدوية مال موضة مرتبو كيدي مركز ده أنا كقاعدنا هنا ده هذا القاعدة تاني راعي مسان واديك هدينه قاعد بودي ديني أدوية اسمه راعي أبو كيدي والنبي الزاهد والنبي عيسى عليه السلام صدق دين ويكهرين بلد النبي أي أندر ذاك برقاس الذهب كي قاتان وإلا السعودين وإلا اللقيين مقالة دي مركي ودوا هذين بين هذين حدان مالين قال له ولا نقدعي هبينهم كوبيكنو لكن وقع جونينا ويتشدين وعيد هذا الله بالذهب كاسي إلى السوق من مقالة دي انتو تقو cuntahay noo soo qaado yuuna cidna inoo sheegin waa hagaag kolkuu ka dhaqaaqay labadii dahabka ku hadhay ilaa shaydaankiiba dhiigga bini'aadamka dhex socdee ayaa wuxuu yidhi mid walba midka kaluu ku yidhi dahabkan labadeennu buu nagu fiican yahay ninkaa markuu yimaado aniguna waan la hadlay waan jeedin adiguna midida halkaa ka geli maydkiisana bahosha ha ku ridno ha ku aasno dahabkana labadeennu ha kala qaadanno marxaba kiina uu sii socdaa shaydaanka isagana dhiiggiisii ku dhex jiro wuxuu ku yidhi dahabkan adigoo buu kugu fiican yahay cuntada intaada soo cun ayakana u soo sumee markay dhintana dahabka iska qaado maxaa ka dhacay kula tahay meeshaas uu yimiday cuntadiiba u dhigay isagii bay khaarijiyeen cuntadii bay cuneen iyagiina way iskhaarijiyeen nabiyullaahi ciisa calayhi salaam ayaa soo maray dahabku halkii yaalla iyo saddexdoodii oo mayda markaasuu xawaariyiintii ku yidhi adduunyadii ubadkaygu sidaas ku galeen eega buu ka yidhi waa kaas halkaas halka laga hagaagaa waa qalbiga halka laga xumaadana waa qalbiga